السلام عليكم سو دواده كسو دواده channelka Mohanas waa barnaamijka caafimaadka ugu hadlaynay wadnaha maanta waxa inoo balansanad inaan ka hadalno heart failure oo ah wadnaha markuu howlgabo waan gudagaleynaa soo dhawaada subscribe saara channelka like iyo share insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa 10 ku saabsan heart failure oo wadnaha markuu howlgabo ah This is a clinical syndrome resulting from structural or functional cardiac disorders that impair the ability of the ventricles to fill or eject blood. معناها tahay kan waa calaamado mise astaama ka yimaado markii qaab dhismeedka ay wax ka qaldan yihiin mise qaabka wadnaha u shaqeeya ay wax ka qaldan yihiin taasoo carqaladayso qaabka wadnaha u tuuro lahaa ventricles-ga ee wadnaha qaabkii dhiig u tuuro lahayn mise qaabka uu dhiig u soo gali lahaa ventricles-ga ay wax ka qaldamayaan marka wadnaha haduu howlgabo wixii wax ka qaldamayaan qaabkii ventricles-ga dhiig u soo bixsamaya iyo qaabkii maxaan ku dhahaa loo tuuro lahaa dhiig ee wadnaha contraction u sameyn lahaa bal aan ka hadalno waxyaalaha keena causes maxaa keeni kara wadnaha inuu howlgabo maxaa keeni karo waxa keeni karo mitral stenosis waxa loo yaqaan mitral valve maxaan ku dhahaa dhiig inuu gadaal u laabto diido ee ku yaala left ventricle-ka ayaa mar qaar waxa dhacday inay gaabato waxyaalo badan baa keeni karo waxa keeni karo rheumatic heart disease amal mitral stenosis waxa gaabanaya mitral valve-ga ayaa gaabanayso waxa kale oo keeni karo mitral and aortic insufficiency ay macnaheedu tahay mitral valve-ga iyo aortic valve-ga markay incompetent noqdaan mise ay soo dhacaan haddii ay soo dhacaan oo maxaan ku dhahaa waxyaalihii ay daayaan mise ay jilaac noqdaan ay soo dhacaan waxaa dhacdo wadnaha inuu fariisto muddo dheer kadib sababtoo ah qofka palpitation baa ku yimaado muddo dheer kadib wadnaha uu fariisan karaa waxa kale oo keeni kara inuu wadnaha howlgab noqdo arrhythmias waxa weeyaan wadnaha garaaca markuusan israaxsanayn oo qofka wadnaha halka daqiiqo waa 60 daqiiqada xigta waa 40 daqiiqada waa 120 daqiiqada xigta marka wadna garaaca markuusan israaxsanayn baa arrhythmias leeyahay ta qofku wixii ku keeni kartaa cardiac arrest in wadnihi maartii uu istaago marka kadib qofka heart failure ku yimaado waxa kale oo keeni kara hypertension saan uga hadalnay hypertension dhiig karka maxaan ku dhahaa aan la marjigreyn aan xadadnayn oo qofka uusan daawo u qaadanaynin oo dhakhtar uusan la soconin wuxuu keeni karaa qofka wadnihiis inuu howlgab noqdo oo muruqi wadnaha uu jilaac noqdo oo dhiig tuuri waayo wadnaha inuu howlgab noqdo waxa kale oo keeni karo atherosclerosis with myocardial infarction atherosclerosis macnaha marka ay baruur gasho coronary arteries-ka amboliyaasha wadnaha dhiigga siiyo mise oxygen-ka siiyo marka ay baruur gasho taana waxa raacsan myocardial infarction markay jeexmaan marka muruqi wadnaha markuu jeexmo wadnaha markuu jeexmo qofkan uu qabo atherosclerosis sideeda myocardial infarction-ka waxyaalaha ugu badan ee keena waxa kamid ah atherosclerosis oo macnaha atherosclerosis qofkii amboliyaasha ay galaan baruur maxaa kale oo keeni kara atrioventricular septal defects markay isu dileelaan labada jeex ee wadnaha atriyaga iyo ventricle-ga markay isu dileelaan sidiisa wadnaha wuxuu qabaa septum wax lihaada ee kala wadnaha wuxuu qabaa septum wax lihaada ee kala baro dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda marka qaar waxa dhacday inay isu dileelaan oo waxyaalo congenital ah inta badan waxay keeni kartaa in qofka wadnaha fariisto thyrotoxicosis waxa weeyaan qofka markuu qabo hyperthyroidism wax loo yaqaan mise thyroid gland-ga qanjirka halka ku yaala ee balanbaalistu ee thyroid gland-ga la yiraahdo ee soo deeya T3 iyo T4 dhacamada la yiraahdo thyroxine iyo thyroidoxine soo daayo baa waxa dhacda marmarka qaar in dhacamada ay tirada ka bataan marka kadibna wadna garaaca aad u bato uu xamili waayo dhacamada uu soo deynaysa qanjirka uu soo deynay markuu xamili waayo marka thyrotoxicosis marmarka qaar it's an emergency wadnaha qofka aad buu u garaacmaya hadii la xadado waayo qofka beta blockers la siin waayo ama daawooyinka wadna qaraaca hoos u dhig la siin waayo waxa dhacdo in wadnaha uu dhaawac ku yimaado marka kadib uu fariisto mise uu howlgab noqdo wadnaha inuu howlgab noqdo waxa kale oo keeni kara renal failure qofka kaliyihiisa oo fariisto kaliyaha hadii fariistaan biyihiisa uma baxayaan plasma volume-kana aad buu u sareynayaa marka kadibna kaliyaha oo fariista waxay keeni karaan inuu wadnaha fariisto kaliyaha haduu fariisto wadnaha way fariisan karaa haduu wadnaha howlgab noqdana kaliyaha howlgab bay noqonayaan way isku xiran yihiin waxa kale oo keeni kara anemia dhiig-yarida waxay keeni kartaa inuu wadnaha fariisto isagan waan ka gudbaynaa waxaan aadaynaa complication qofka wadnihiisa haduu fariisto maxaa imaan kara maxaa xigi karo maxaa xanuun uu qaadi karaa pulmonary edema tissue sambabka ama tissue substance sambabka waxa soo gali kara biyo ayaa soo gali kara uu barariya
sanbabkii uu bararaya soo galaya bararkan wuxuu ka imaaday biyo ayaa soo galaya oo ka imaanaya biyaha soo ka imaanaya maxaan ku dhahaa xididayaashii ku weegaarsanaa sanbabka waxa kale oo iman kara pleural effusion in dahaarka sanbabka ay galaan biyo dahaarka sanbabka inay biyo galaan ayaa imaan karto mise xindaabka sare ee sanbabka inay biyo galaan maxaa kale oo iman kara organ failure in xubnayaasha ay fariistaan jirka kaliya inay fariistaan beerka inuu fariisto in brain death ay qofka ku dhacdo maxaa kale oo iman kara cardiomyogenic shock in wadnihii uu dhiiga tuuri waayaba sidiisaba jirki uu dhiig heli waayo dhiig ku filan uu heli waayo oxygen ku filan uu heli waayo waxaa kaloo dhici karto myocardial infarction in uu jeexmo muruq wadnaha inuu jeexmo sababtoo ah oxygen la'aan wuxuu noqonayaa gangrene wuxuu noqonayaa wax dhintay camal buu noqonayaa unugyadii baa dhimanaya marka kadibna uu jeexmi karaa waxaa kaloo imaan karo ascites in peritoneumka xindaabka sare ee maxaan ku dhahaa abdominal organ saga hayo inay biyo galaan ascites in xindaabka sare mise xuubka sare ee maxaan ku dhahaa abdominal organ saga ay ku jiraan mise wax loo yaqaan peritoneumka ay biyo galaan inta badanka wuxuu ka yimaadaa right sided heart failure waxaa kaloo imaan karo hepatosplenomegaly inay weynaato liivada iyo beeryaraha beerka iyo beeryaraha inay weynaadaan hepatosplenomegaly waa laba erey oo la isku qabtay hepato waxay u taagan tahay liver beerka spleno waxay u taagan tahay splinka mise beeryaraha megaly waa weynaasho marka way weynaanayaan marka qaar right sided heart failure ayaan laga helaa nursing interventions waxa weeyaan doorka aad ku leedahay as a nurse qofka hadduu wadnihiisa howlgab noqdo maxaad u samaynaysaa adiga administer prescribed medications qofka waxaad siinaysaa daawooyinka uu dhakhtarku soo qoray daawooyinka ugu badan la siiyo inta badan waa digoxin daawo la yiraahdo camal waxayna samaysaa wadnaha muruqiisa xoog u yeeshaa maxaan ku dhahaa wadnihi inuu contraction samayn karo awooddaas ay u yeelaysaa waxaa la yidhahdaa digoxin daawo la yiraahdo ayaa la siiyaa inta badan marka waxaad hubinaysaa compliance in qofku uu daawooyinkiisa qaadanayo waxaa kaloo u samaynaysaa anti-embolism stockings to promote venous return qofka waxaad u xiraysaa stocking sigisaan dhaadheer waa stockings sigisaanta dhaadheer baa loo xirayaa si micnaha lugaha u cadaadiyaan marka kadibna dhiiggu uu soo laabanaya dhiigii luguhii buu u imaanaya qofkii lugihiisi dhiig la'aan ma ahaanayaan marka cadaadiska ka imaanaya sigisaanta waaweyn ka imaanaya waxay keenaysaa in uu dhiiggu ku soo laabto lugaha inta badan qofka wadnihiisa hadduu fariisto waxaa laga yaabaa in kiliyaha compensatory mechanism wax la yiraahdo jiro kiliyaha iyo beerka uu dhiig badan u tago laakiin lugaha iyo gacmaha uu dhiig badan u imaani waayo marka kadibna lugaha iyo gacmaha uu ka soo qaboobo uu dhiig u imaani waayo marka stockingan waxay ka caawinayaan qofka in lugaha uu dhiig u soo laabto lugaha inuu dhiig yimaado elevation of lower extremities to relieve edema lugaha qofka barkin baa loo gelinayaa lugaha markuu soo galo lugaha barkimo baa loo gelinayaa kor baa loo soo qaadayaa haddii kalena sariirtaaba kor loo soo qaadaya haddii la doono marka why elevation maxay ka caawinaysaa dhiiggii baa gadaal usoo laabanaya venous return bay ka caawinaysaa dhiiggii gadaal usoo laabanaya edema mise bararkii luguhu ka yimaadina wuu dhacaya waxaa kaloo bukaanka ku caawinaysaa sodium restricted diet cunnada uu bukaanku cunaya waa in laga yareeyaa waxyaalaha cusbada leh waxyaalaha cusbada waa in laga yareeyaa bukaanka sababtoo ah cusbada waxay keentaa in fluid retention ay timaado in qofkii micnaha dhiiggiisi biyihii ay soo bixiyaan kilihii ay soo bixin waayaan biyo badan fluid restriction qofka biyaha ka yaray biyo tiro badan in xididka ama loogu daro ama biyo tiro badan la siiyo maaha why plasma volume ayaa aad u sarakacaya marka kadibna plasma volume hadduu aad u sarakaco wadnihii ma qaadi karo waxyaalaha dhan dhiigga dhan ma qaadi karo maxaa kaloo u samaynaysaa low fat diet baruurta ku yaray cunnada baruurta yar cunno aan baruur badan lahayn ayaa la siinayaa exercise as tolerated jimicsina waa inta uu samayn karo jimicsiga bukaanka in jimicsi tiro badan uusan samayn karin uu daalaya in lagu qasbo maaha jimicsi intii uu awoodo waa in loo sameeyo bukaanka waxaan u gudbaynaa surgical management qaliin ahaan bukaanka maxaa loo samayn karaa waxaa loo samaynayaa valvular replacement haddii valvuska ay soo dhaceen sida hore aan u sheegnay mitral iyo aortic insufficiency valvuska oo soo dhacay ay keeni karo valvuska haddii ay soo dhaceen bukaanka waxay noqonaysaa in valvular replacement loo sameeyo kuwa macmal ah in loo geliyo prosthetic valves in loo geliyo ayay noqonaysaa heart transplant in wadno kale loo geliyo in qof bukaankii wadno kale loo geliyo
waxa kale oo loo sameyn karaa ventricular assist device. Ventricular assist device waxa weeye qalab kale ee ka caawinaya left ventricle inay dhiig qaado ee qaybaha kale jirka u geyso qalab ka caawinaya way. Stent placement waxa loogu talagalay dadka hambowlahooda maartay isku soo dhawaaday sida aan sheegnay atherosclerosis waa markii hambowlaha uu aad u yaraado sababtoo ah baruur ayaa soo gashay qofka in loo sameeyo angioplasty loo geliyo stent si macnaha loo furo hambowlayaasha xirmay ay baruurta xirtay in la furo. Marka stent placement waa tuubo waxaana la geliyaa hambowlayaasha wadnaha coronary arterieska si loo furo hambowlayaasha ay baruurta xirtay. marka cashirkeen intaas uu ku eegyahay halka igala socda channelka Mohana subscribe ala saara like iyo share kan waa noo dhiirigelin asxaabtaada la wadaag insha Allah inta ay nabadgelyo